madaxweynihii hore Soomaaliland oo safarkiisii ugu horeeyay ee uu kaga baxo caasimadda intii laga wareejiyay talada dalka ayaa waxa uu ku soo booqday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil isagoo dadweynaha reer Berbera maanta kala qadeeyay Hotel Diamond ee magaalada Berbera halkaas oo shacabka si fiican oo diiran ay ugu soo dhaweeyeen intii hoteelkaasi ku sugnayd waxaana dadkii halkaasi ku sugnaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay kamid ahaa agaasimihii hore wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Salebaan Saciid Cali iyo xogayihii hore ee fulinta dawladda hoose magaalada Berbera Suhayb Maxamed Cali waxaana tilmaameen in ku faraxsan yihiin in iyagoo mar kale xukuumaddiisa ay ka tirsanaan jireen madaxweynahoodii hore halkan ku soo dhaweeyaan mandeelihii qarniga Afrika ayuu yahay madaxweynuhu waxaan soo dhaweynaynaa horta waa marka koowaad waa booqashadii koowaad ee Berbera ku yimaado intii uu xilka ka tagay anaga xukuumaddeeda dhamaatay waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa isagoo goboladii kala tagin inuu gobolka Saaxil ka bilaabo waxay tusaysaa madaxweynuhu jacaylka uu qabo reer Saaxil iyo gobolka Saaxil intii uu xukuumadda hay waa gobolkii ugu badnaa uu tago ee ku soo dhaweyn jirnay xilkii uu ka degayna waa markii koowaad uu baxo Hargeysa uu ka tago gobolkii koowaad uu tagaana Saaxil buu noqday waxa leenahay madaxweynuhu ku soo dhawow anagu waxaan nahay mas'uuliyiintii xukuumaddiisa waxaan ragii ugu firfircoonaa waxaan ka mid ahay ragii gobolka ku soo dhaweyn jiray halkana mar labaad waxaan ka tilmaamaynaa inaan nahay garabkii madaxweynaha ragga soo dhaweynaya ragga u fadhiya ragga aan ka hadhahayn ayaanu nahay runtii madaxweynaha qaranku waa macallinkayagii waa macallinkii annagana soo barbaariyay na soo baray siyaasadda nagu training gareeyay aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa waan ku soo dhaweynayaa gobolka Saaxil farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu caasimadda gobolka Saaxil ku soo dhaweyno madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Aadan Silaayo oo ahayd booqashadii ugu horeysay ee tan iyo intii uu ka degay ama uu wareejiyay xilka qaranka oo ku yimaado Berbera oo ku yimaado caadana u ahayd inuu madaxweynuhu had iyo goor Berbera uu ka fadilo iyo gobolka Saaxil guud ahaanba gobolada kale oo booqashadiisu ay ku badnayd maantana hadduu nagu soo horeysiiyay markii uu xilka ka degay inuu na soo booqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xilka qaranka markii uu qabtayna gobolkii ugu horeeyay uu booqday wuxuu ahaa gobolka Saaxil iyo caasimadiisa Berbera aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dhaxalkiisii baa maanta ay Soomaaliland ay shaqaysaa xukuumadda iminka joogta ee kulmiyana waa hogaamiyihii iyo halyeeyigii u jeexay talada ay dalka ku hanatay mar labaad iyo hanaanka ay ku hogaaminayso waa kii u jeexay macalinka u ahaa khayr badan baan u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad baan u rajaynaynaa madaxweynaha iminka talada hayana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu xilka la garab galo oo ku asturo isagii xukuumaddiisaba